markaana magaalada Kaalkacyo arday dhamaysatay waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadda Kaalkacyo ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyin waxaana ay ku soo aadaysaa dhamaystirka maadooyinka jaamacaddaasi waxaa ka soo qayb galay munaasabadda ardayda lagu guddoonsiinayay shahaadooyinka qaar ka mid ah maamulka jaamacadda iyo maamulka gobolka Galmudug wariyaha iyaga magaalada Kaalkacyo Axmed Khaliif ayaa warbixinta eegaya oo ka qayb galay munaasabadaasi 60 arday oo wax ka baranaysay jaamacadda Kaalkacyo ayaa waxa loo qabtay xaflad ballaaran kadib markii ay dhameysteen kulliyadaha caafimaadka iyo computer science-ka waxaana la guddoonsiiyay shahaadooyin xafladda qalin jabinta waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda Kaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Galmudug waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu hore waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Kaalkacyo Professor Cabdiqaadir Maxamed Sharwa xafladda maanta qiimaha madasha ay leedahay ee aqoonta lagu taageerayo dadka ka soo qayb galay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalin runtii aad iyo aad guddiga mufti oo maxamed cali aadan hadda uu ka dhawaajiyey iyo waalidiintii ardaydii ku taageertay maalintii koowaad in ay arday keenaan jaamacad magaceedu meeshii ugu horreysay ee Kaalkacyo laga aasaasay in ay arday keenaan oo yiraahdaan ardaydaas baan rabnaa inay wax ku bartaan himiladeen waxay ahayd markii guddiga mufiid in 10 arday haddii la helo jaamacad lagu bilaabo dhawaantii jaamacaddii wataa mariyay ka soo baxay maanta ay deegaanka oo dhan jooga waxaa aad farxad weyn loogu ah in ay maanta qaybta ugu muhiimsan oo cilmi baarista ah ee jaamacaddii yeelatay waxaa farxad weyn ah ardayda qalin jabinaysa hadda inay maamulka hayaan ardaydii ka horreysa 4 sano qalin jabisana ay xubno ka yihiin ay u qabteen oo xawar uga timid in ay hawshaan ka qayb qaadato 4 sano ka hor jiyo ka qalin jabisay markay maalintii qalin jabinaysay ay baashka qaadanaysay wiilkeeda ayaa master qaadanayay ayadii wiilkeeda master qaatay ayaduna baashka qaadatay waxaan jeclaan lahaa inaan soo horstaajiyo oo ay laba kalmadood tiraahdo markuu ka qalin jabinayo jiyo Ahmed dadkii ugu horreeyay oo lagu bilaabay jiyo dadkii qalin jabin waa salaamaya Cabdikariin Koonfurow oo ka mid ahaa waalidiinta ardayda qalin jabisay ayaa halkaasi ka jeediyay hadallo dardaaran ah dadka ilmahooda tahriibinaya oo ilmaha u diraya meelo kale oo cilmiga halkaan yaa loo diraya waa la talin lahaa waxaan oran lahaa halkaan ku fiican yihiin jaamacadda Geesi jaamacadda ay ka soo baxeen waxay ka faanay wixii shaqada saahayo markaasay tahriib galeen marka waxbarashadiisa lama oran karo waa lagu qasaaray ma asaas waa inaad waxbarashada adigu aad markaa wax barato dadkii hore fakirkii ay haysteen waxay ahaayeen wax ka duwan oo ka sii dheeraad oo inaad la timaadaayo wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Galmudug Burhaan Warsame ayaa sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay in maanta horumar laga gaaro dhinaca waxbarashada laakiin waxaan tusaale yar aan u soo qaadanayaa isbarbardhig qofka wax bartay iyo qofka wax baran waxaa la yiraahdaa qofka aan wax baran wuxuu la mid yahay dhul duur ah oo aan biyo lahayn oo aan biyo lagu shubin oo aan la waraabin maxaa ka soo baxaya si kastoo dhulku u yahay dhul nafaqo leh uu yahay dhul beereed ah haddaan roobna ku diin lana waraabin waxa ka soo baxay haweenka ma jiraan waxaa la mid ah bini'aadanka markuu dhasho haddaan wax la barin oo cilmi uusan helin wuxuu la mid yahay dhul angegan oo qallalan buu la mid yahay sidaas daraaddeed bini'aadanka waxaa lagu waraabiya oo wax ka soo saaraya waa cilmiga marka dadka cilmiga bartay ayaa ah kuwa la waraabiyay oo maskaxdooda wax soo saarayso dhinaca kale ardayda iyo maamulka jaamacadda Kaalkacyo waxay u dabaaldegeen sanad guuradii 8aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay jaamacadda Kaalkacyo Axmed Khaliif Geedi RTN Kaalkacyo